السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا علي أكاديمي وعشر كيسة دحاد أو revision عشر كاسو كسابسن do أما verb to do تاسو action activity أما waxaad samaysay ficil aad samaysay markay tahay faltagayna waxa weeyaan did ayay noqonaysaa aynu eegno qaybta hore ee casharka do and does waa markay positive ka tahay negative marka tahayna waa don't and doesn't so aynu eegno markay tahay positive inagoo isticmaalayna I they we he she so sentenceka ugu horeeya waxa weeye I do my homework casharkayga waan sameeyaa they do the homework iyagu casharka way sameeyaan we do the homework annagu casharka waa sameynaa he does the homework isagu casharka wuu sameeyaa she does the homework iyadu casharka way samaysaa he does the homework isaguna wuu sameeyaa casharka haddana aynu eegno markan ay yihiin doesn't and don't so waana negative weeyaan I don't like football anigu kubadda ma jecli they don't like football iyagu kubadda ma jecla we don't like football annagu ma jeclin kubadda he and she always waxa weeyaan doesn't markay ay yihiin present simple so he doesn't like football isagu kubadda ma jecla she doesn't like football iyadu ma jecla kubadda marka labadaas un baa ka duwan inta kalena waxay isticmaalayaan don't haddana waxaynu eegi doonaa qaybtii kale casharka so waxaynu hadda isticmaalaynaa did waa markay tahay past ama faltagay didn'tina waxay noqonaysaa markay negative ka tahay so aynu eegno sentencekan inagoo haddana isticmaalaynaa pronouncekii I did my homework casharkaygii waan sameeyey we did the homework casharkii waan samaynay they did the homework iyagu way sameeyaan casharkii he did the homework isagu wuu sameeyey casharkii she did the homework iyadu casharkii way samaysay haddana aynu eegno marka isma bedelayaan marka wuxuba did bay wada isticmaalayaan markay pastiga tahay negativeka markay tahayna didn't bay wada isticmaalayaan marka aynu eegno I didn't do my homework casharkaygii maan samayn we didn't do the homework iyagu ama annaku maanaan samayn casharkii he didn't do the homework isagu casharkii muu samayn she didn't do the homework iyadu casharkii may samayn markay negativeka yihiin waxay wada isticmaalayaan didn't waxba isma bedelayaan aynu eegno qaybta kale casharka halkanina waa tusaale kale marka do la isticmaalayo mar waxaa loo isticmaalaa as a main verb marna as an auxiliary verb main verb waa main verb of the sentence bay noqonaysaa marna auxiliary verb ama tii caawinaysay verbta kale laba verb baa sentenceka ku jira marka mid baa caawinaysa midna waa main one midna waa ta muhiimka ah so halkan waa do as a main verb aynu eegno tusaalahan halkan hoose ku qoran marka haddaan dhahdo I do understand you waan ku fahmay main verb waa doda haddaan idhaahdo she does the cleaning sentenceka hal verb baa ku jirta halkaasina waa does waana the main verb the mainka waa muhiimka ah verbka muhiimka ah marka she does the cleaning iyadu way samaysaa nadiifinta I do believe you waan ku aaminay marka do is the main verb waxa weeyaan main verbka I do exercise every day anigu jimicsi baan sameeyaa maalin walba do waa the main verb what did you do yesterday shalay maxaad samaysay halkan laba baa ku jira marna waa past marna waa present so markay hadda dodaasi waa the main verb did taasina waa the auxiliary verb waa tan bay caawinaysaa marka laba did baa ku jira laba do baa ku jira sentenceka shalay maxaad samaysay what did you do yesterday haddana aynu eegno do as an auxiliary verb iyadoo verbta kala caawinaysa do you like football do auxiliary verb like main verb muuska miyaad jeceshay weeye do you like football does he play football isagu kubadda miyuu ciyaaraa does auxiliary verb main verbkuna waa playda did they go home gurigii miyay aadeen
Did they go home? Guriga miyay aadeen? Gurigi miyay aadeen? Did waa auxiliary verb. Gona waa main verb. I didn't do my homework. Homeworkgayga anigu maan samayn. Didn't taasi waa auxiliary. Tan bay caawinaysaa verb. Doday caawinaysaa. Marka labadaas siyood baa loo isticmaalaa. Marna waa main verb, marna waa auxiliary verb. Waxaan kaaga baahannahay inaad qorto hal sentence oo ah iyadoo verbtii oo ah main verb, marna iyadii oo dudii oo ah main verb, marna iyadii oo ah auxiliary verb. Marka commentiga nagula wadaag. casharkana intaasuu inoogu eegyahay. Intaanu ku kulmi doonaa casharka kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.